magaalada Lodgerbein ee dalka Norway oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 2,000 oo qoys ayaa ah magaalo ka duwan magaalooyinka kale ee dalkaasi. Waa jasiirad ku taala bartamaha dalka Norway oo qofkii ku xanuunsada uu ka baxayo magaalada amaba haddii uu ku dhinto aan lagu aasi karin. Dadka nafqabadka qaba ayaa loo diraa magaalooyinka kale ee Norway si ay ugu geeriyoodaan. waxaana jira sharci ah in qofka haddii uu ku dhinto aan lagu aasi karin halkaasi. sharcigan ayaa magaaladani ka dhaqan galay 105 sano ka hor, waxaana sanadkii 1918 albaabada la iskugu dhuftay xabaalaha magaalada oo dhan. intaa wixii ka dambeeyayna aan la ogolayn in hal qof lagu aaso. Lodgerbein oo ah magaalo aad u qabow inteeda badanna baraf ah ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca in qabowgu uu gaaro heerka ugu hooseeya ee 50 darajo, heerka biyuhu ay ku barafoobaan. maxay tahay sababta aan loo ogolayn in halkaasi lagu aaso meydka? sanadkii 1918 waxaa adduunka ka dilaacay hargab lagu magacaabi jiray Spanish flu, dad lagu qiyaaso 500 milyan oo qofood. meelaha uu ka dilaacay xanuunkaasi waxaa ka mid ahayd magaaladan oo aad loogu dhibaatooday. dadka ku dhintayna ay gaarayeen ilaa 11 qofood. dadkaas oo lagu aasay isla magaalada. hase yeeshee qabowga magaalada oo aad u daran ayaa waxay keentay in dadka u geeriyooday xanuunkaasi lagu aasay magaalada aanu jirkoodu baabi'in. taa oo khubarada caafimaadka sheegeen inay jirto halis ah in xanuunkan mar kale ay dadku qaadi karaan. dadkii ku dhintayna lagu aasay magaalada, kuwaas oo jirkoodu aanu baabi'in welina sidiisa yahay. Dr. Chris Tukan oo ka tirsan jaamacadda Windsor iyo kooxda uu hogaamiyo ayaa tagay magaalada si ay u ogaadaan waxa jira. waxayna tijaabo ka soo qaadeen qof u dhintay xanuunkaasi oo lagu aasay Lodgerbein. waxayna ogaadeen in weli xanuunka Spanish flu jirkiisa uu ku jiro. Christian Meyere oo sidoo kale ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Norway ayaa horay u sharaxay sababta aan dadka loogu aasi karin magaaladaasi. sababtu dhulka mar walba waa baraf, dadku lagu aasi karin ayaa waxay tahay in qofku marka uu dhinto halkii laga rabay in jirkiisu baaba'o aanu sidaas u noqonayn. sidoo kalena barafku uu bannaanka u soo saarayo meydka, ayuu yidhi Christian Meyere. arrintan ayay saraakiisha dowladda Norway ee magaalada Lodgerbein sheegeen in haddii aan la dhaqangeli lahayn ay horseedi lahayd dhibaato caafimaad. waana taasi sababta keentay inay la yimaadaan qorshahan u horseeday in dadka laga mamnuuco in lagu aaso magaaladaasi meydka.